dadweynaha halkan isku yimaada ganacsiga iyo dadka ariga gadanaya suuqii hore waa ka soo wareejinay ariga waxaan u soo wareejinay halkan maadaama hagga meeshii hore suuqa ahaan jiray ay lahaayeen oo ay yiraahdeen ilaa anna ka wareejiyo halkaan u soo wareejinay waana dhisanaa meel habaysan oo balbala ah oo ariga ku xaroodo baa loo sameeyaa isla meeshaan si markii magaraysa qofku markuu ariga keeno uu soo dhibin xeradaas uu ku xareeyo qataarka loo geliyo halkaas ariga lagu kala gato cashuurta ariga bartaa lagu reebo baan halka ugu soo wareejinay maamulka iyo degmada dhan iyo dawladda hoose dhan waa ka fakadhay in magaraysa halkaan loo soo wareejiyo maadaama meeshii hore uu ku silcsanaa waxaan halka ugu soo wareejinay waa suuq inaan u sameeyno si arigiina ugu badbaado cashuurtiina loo helo oo ay u dhacdo si sharaf loogu kala gato neefkaas 12 maalintii har buu ku jirayaa ninka shaqeynaya dawladda hoose kursigiisa iyo miiskiisa loo keenayaa ninka dadka ariga watana maxaa hayto meel fadhiya loo sameeyaa ay ku nastaan laftigooda iyo dadka ariga gadanaya ma garatay hadii lahayd ma weeye suuq caalami ah laga sameeyaa meesha sidaas baan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi salaamaya marka ugu horeysa dadweynaha meeshan isku yimid sharafta leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaankan bacdi annagu waxaan ahay dadkan deegaanka ah sida qaalibka ah baanu ka mid ahay ganacsatada iyo deegaanka ku roon yahay tan ma laakiin dad carrada ka warqabo oo deegaanaha xoolaha ama miyiga looga keeno ama magaalada ka gada baan ka mid ahay oo aan wax ka ogahay ma sha Allah waxaan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba mar haddaad noo garateen suuqa in laga soo wareejiyo meeshii ku habboon aad dhisaysaanna aad baan idin soo dhaweynaynaa ma sha Allah soo dhaweynaynaa canshuurtuna aatan dadku waa runa warqab ka ay harimayo warku inaba hadda wuxuu lahaa 30 iyo markii ariga laga baxo ariga neefka ugu yar 60 baa laga baxaa neef maaragtay baayac gali kara 60 70 sideetan bahaat ariga u sareysay qaalibka markii jidaalku ariga aad u kacay 80 iyo 3 iyo mar baa la gadi jiray laakiin sida qaalibka hadda xoogaa maarta roobka iyo xooliyo isku yimid iyo aaniyo noo raqisay nabca badan baa jira alxamdulillah ilaahay u shukrinay waxa weeye hadda ariga 80 baa la siistaa sida qaalibka neefkiisa ugu sareeyo marka arigu saas u maraya cashuurtan hadii ilaahay waxa leeyahay dadweynuhu haas ka baxsho waa soo dhaweynaya hadii ilaahay marka hadii halkan nala soo wareejiyana ma sha Allah hal meesha kuma haboonay maxaayad bay ahayd boosaneer baa la fuuli jiray moogta oo kuraas noo ahayd hadaan meesha waa tagi jiray hal boosaneer baa fuuli jiray alxamdulillah aad baa idin soo dhaweynayna cashuurtana waa iska bixinayna dad meesha dadweynaha iyo xoolaha u dhistaana aad baa u mahadsantahay waa sharaf ilaahay haydan sharaf intaas aan ugu soo gaabin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dadka meesha isugu yimid sharafta leh rag iyo dumarba waa salaamayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku faraxsanahay saakay ayadoo dawladda ay noogu timid meeshan oo loo soo bedelay suuqi xoolaha oo awal la meel dayacan aanu ku iibsan jiray xoolaha inkastoo aanu dibxalahan aan ka mid ahayn dadka deegaanka degmada Jariiban degan baan ka mid ahay waxaan ka soo yeeshay muraad neef muraadaan u soo doontay qofka koowaad saaka ka iibsaday baan ahay neef muraada ma sha Allah lacagtiisana way iska bixiyay cashuurtiina way iska bixiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waana ku faraxsanahay inkastoo ay hadda ka horba ku haboonayd in maaragta loo dhiso meel aan xanaanaa oo xoolaha ku haboon in lagu iibiyo haatanna waxa ballan qaaday dawladda hoose rag kamida oo haddaba halka taagtaagan waana ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum ganacsatada xoolaha ama iibsiga suuqa xoolaha dawladda hoose suuqa shalay ayay ahayd markaanu ka soo rarnay goobtii u cayinayd oo ku shaqeyn jiray dawladda hoose ama canshuurta lagu canshuuri jiray ama iibka xooluhu ka socon jiray waxaan u soo rarnay geedkan qurca oo waxa weeye runtii aan markaan aragnay duruufyo jira awgood iyo dadkii lahaa booskaas ama boos dawladdu ay leedahay u asteysay usan ahayn si kumeel gaar ah loogu nafacsan jiray ka bacdina dadkii ay ka keeneen in waxa weeye meeshii wax badan oo culaysa soo wajahay meeshii magaalada dhexdeeda ahayd goobtan ayaan u asqeynay waxaan rabnaa goobtan inaan u sameeyno meel dugaal ah oo xoolihii lagu xanaaneeyo waqtiga iftiinka ah waxaan marka ganacsatada iyo dadka xoolaha keena iyo dadka iibsada iyo intaba aan ugu baaqaynaa in ay u hoggaansamaan awaamirta dawladda oo ah neefka markii meesha la keeno saliska canshuurta laga bixiyo ka bacdina si sharaf loo karaamo leh in neefka loo kala gato ka bacdina waxa weeye dantii la lahaa looga gaaro anagu
annagu meeshaan waxaa jira inta badan xoolaha markii aan siligaas ama meeshaan u samayno lagu xanaaneeyo dadka qaarkood inay habeenkii neefka ku xiran la arko taasina waxa weeye sharciga wax baalmarsan weeye neefkan maalintii haddii iib lagu waayo qorraxdu markay dhacdo waa in neefkii meesha laga furaa oo qofku neefkiisa ka haystaa oo gurigiisa iyo hadduu baadiye la aadayo uu ka haystaa laakiinse inuu goobtii neefka uga tago neefkan dunyada ay laftigiisu wuxuu u baahan yahay xanaano waa lagu weydiinayaa maalinta qiyaame haddii aad si sharci darra aad tiraahdo u iibso haddaa halkaa kusoo xidhi uga tagtid taasna waxa weeye waa tilaabo u baahan dabagal annaga waxaan rabnaa sharciga aanu ku hagayno bolisiga canshuurta ama systemka canshuurta aan uga qaadano xoolaha iyo waxaan rabnaa dadka xoolaha wata iyo neefka la gadanayo intaba inaan system qurux badan oo neefkiina uu ku dhaqaaloobayo qof kii wax gadanayana uu nabadgelyo ku helo kii canshuurta qaadanayana uu nabadgelyo ku helo systemkaas inay nagu raacaan ganacsatadu waan ognahay dadka degmadan wax keensaday inay dad sharaf iyo karaamo leh horumarna diyaar u ah laakiinse suuqa inaan ka soo bedelnay maanta halkan culayska keentana dhismaan u sameynaynaa iyo meel neefkaas waxa weeye waa hilib neefka halka qofka maray waxa la rabaa inuu gaariga iyo meel uu dugaal u ah neefkaasi ii sheeg mudan yahay in la geeyo runtiina waanu ballan qaadnay ganacsatada iyo dadka xoololada iibsada oo suuqan jooga iyo dulaaleydana waxaan leenahay waa in dadka soo guudhada ah oo xoolaha meeshan ka gato aan sida suuqan wax looga gadan jiray aqoon oo in ayadana laftigeeda la sama caamilo oo ma taqaanaa nabad ay ku jira amniga loo kala gato runtii intaas kormeerka iyagu daaranaa maanta suuqan ku nimaadnay canshuurtana inta badan dad waxaa jira collectorka ama canshuur aruuriyaha dawladda hoose u jooga dhibaateeya oo iyagoo bixin kara neef laga yaabo $30 inuu kala baxay ama $20 ama $40 kala baxay inuu $1 canshuura jari waayo taas nasiib darray noqonaysaa marka canshuurtana in la fududeeyo waa wax sharciya ila sharciga canshuurtu qofka kasta oo muwaadin oo Puntland jooga ama Soomaaliya jooga waxa ku waajibtay canshuur inuu bixiyo canshuurtuna waxa horumarkeena iyo dawladnimadeena iyo kaabaheena dhaqaale laga soo saarayo oo adeegyada asaasiga iyo saliska dawladdu ay ku shaqeynayso ka soo baxayaan runtii aad baan ka mahadcelinayaa salaamantiin waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha madaxa canshuuraha degmada